darada xun oo dhan waayo kiimiko baa caagadaha bayba ka samaysay xanjo markay dhalaalaana wasakh bay yeelanayaan caanaha ama biyaha ama kuwir wallaahi waxay u dhacday fikradda markaa gabdhaha u soo jeediyey burqa iyo maalka gabdhaha leh gabdhuhu fikraddaas aad bay u qaateen iyagoo caagadda nacayay in la dabargooyo caagadda oo dhaqankooda ay u soo noqdaan baan markaan u sheegayba waa qaateen isla markiina waa ku dhaqaaqeen caanaha waxay kaga fiican tahay waa shay fiican oo soo jireenkeena iyo dhirta laga soo sameeyey oo la culayo waa la aslayaa marka hore marka dambe waa la culayaa waa la deebinayaa waxaa lagu lisayaa ariga oo freshka caanihiisa lagu lisayaa boqolaal sano adoogiis ummadayadii oo dhan baa ku soo dhaqan waxay ku noolaadaan iyo waxay mataqaan ummaddan ay faa'iideeyaan iyaguna ay faa'iidaystaan intaasay iyagu ummaddan u faa'iideeyaan dee reer Puntland waan iibinaa dadka masaakiinta oo caanaha gada islaama caanooda qayb waa ugu deeqnaa ama reer baadiyaha waxaan gadan karin marqooda iyo maalkooda bay isu keeneen saasay ku wadaan ku dhaqaajiyeen gabdhaha waa wada macallimiin gabdhaha waaweyn macallimiintaas waxay rabaan dadka ay wax barayaan waa bishii 60 qof ay tababar karaan waxaa laga qoraa waxaa laga qoraa labiga ha yucub xaleefato bir godasha u goda basaa lagu soo yiraahdaa cabaar gimina 2 saac oo de hawsha rarada gabdha waa dubayir xagay yaalin raradii waa kuwa de dhilihiyana inikaaba u jeeda dhil weeye dhil bacoyo weeye wali lama xoolay bismillaahir rahmaanir rahiim ururkii waa u jeedaan waxqabadkiisina waa u jeedaan anagoo jecel dibadaha inaan aado oo alaabta aanu mataqaan maal aanu iibgeyno oo dibadaha waa iska rabnaa marka waxaan ugu baaqi lahaa mataqaan shuraako iyo ururada kale ururka local iyo internationalaba inay na caawinaan gabdhahan Soomaaliyeed oo siba Puntland